السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سند جورا وناكسن guudahaan ba ummadda reer Soomaaliland waxaan ugu hambalyeeynaa sanad guuradii sodonaad ee ka soo wareegtay maalintii dib loola soo noqday xorriyadii lala lumay 60kii guudahaan ba hambalyeeyaan idin leeyahay bisha May Soomaaliland waxay u tahay bisha ay xusaan isla markaasina ay xasuustaan dhacdooyinkii dhiilada iyo murugada lahaa ee laga dhaxlay midnimadii sidoo kale bisha May waa markay u dabaaldegaan farxadda maalintii talada la helay ee la asaasay qarankan Urdunka ee aynu nabadiisa ku caanamaado mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan idin leeyahay hambalyo anigu bishan xorriyadda waxaan idin kula dabaaldegi doonaa saddex barnaamij oo kooban oo koobsanaya ana ka diyaariyay guud ahaan taariikhda Soomaaliland barnaamijka koobaad waxa uu ka warrami doonaa Soomaaliland ka hor gumeystihii sidee buu xaalkeedu ahaa maadaama taariikhaha dadka lumiya ay ku doodaan inay jireen Soomaalidii la kala jarjaray oo dhahaan Soomaali baa gumeysay kala jarjaray barnaamijku waxa uu jawaab u noqon doonaa ma jirtay dad Soomaaliya oo midaysan oo wadan leh oo uu gumeystuhu qaybsaday sida aynu taariikhda ku hayno sidoo kale barnaamijku waxa uu jawaab u noqon doonaa midnimadii Soomaaliland iyo Soomaaliya yaa keenay sidee bay ku timi ujeedadii iyo yoolkii laga lahaa maxay ahayd qaybta koobaad ee barnaamijkeenu intaas ayuu diiradda saari doonaa waa taariikhda Soomaaliland ka hor gumeystihii iyo waliba xilligii gumeystaha qaybta labaad ee barnaamijkeenu waxa uu diiradda saarayaa isla markaasina uu soo bandhigayaa 30kii sanadood ee Soomaaliya lala midaysnaa sidee buu xaalaha midnimadii dadkeena reer Soomaaliland ay qaybta koobaad ku daawan doontaan jidbadii iyo didiiladii Soomaalinimo maxaa laga dhaxlay sidee bay ku burburtay midnimadii dadkii reer Soomaaliland maxay dhaxleen barnaamijka labaad ayaa ka warrami doona barnaamijka saddexaad oo noqon doona ka ugu xiisaha badani isaguna waxa uu diiradda saari doonaa 30kii sanadood ee maanta inoogu buuxda maxaynu qabsanay waa sidee xaalka Soomaaliland halkee baynu shalay ka nimi halkee ayaynu maanta taaganahay halkee ayaynu soo soconaa 30ka sanadood ayuu barnaamijka ugu dambeeyayna insha Allah diiradda saari doona qaybta koobaad hadda ayaa daawan doontaan 14 bisha waxa daawan doontaan barnaamijka labaad maalinta 18 Mayna waxaynu ku wada dabaaldegi doonaa 30kii sanadood ee Soomaaliland jirtay iyo barnaamijkeena saddexaad daawasho wanaagsan jamhuuriyadda Soomaaliland waa qaran soddon jirsaday sidoo kale waxa uu 30 sano la midaysnaa Soomaaliya halka 74 sano uu gacanta ugu jiray gumeystihii Ingiriiska oo uu ahaa mustacmarad heshiis uu la galay odayadii dhaqanka ku maamulayay muddadaas dheer haddaba ka hor intii aanay Britain cagta soo dhigin ciidda Soomaaliland dalkan iyo dadkan Soomaaliland yay gacanta ugu jireen guud ahaanse maxay ku sugnayd Soomaalidu dhulkii Soomaalida iyo guud ahaan baqaaradda madow ee Afrika waxay ahayd mid ay ka jireen maamullo u ekaa boqortooyooyin oo iyagu ka talinayay hadba meeshii ay xuduud ku qabsadaan boqortooyooyinkaasi ma lahayn xuduud heshiis lagu yahay boqortooyo kastana waxay xuduudeedu ahayd hadba inta ay awoodeedu leeg tahay waxay kala qabsan jireen dhulka boqortooyada awoodeedu kortaa waa uu si ballaaran jiray dhulka ay maamushaa ta awoodeedu isdhintaana waa uu soo ururi jiray dhulka ay ka talisaa kaas ayuu ahaa nidaamkii lagaga dhaqmi jiray qaaradda Afrika oo yana dhulkooda ay ka jireen maamullo kala duwan oo ay Soomaalidu kala mid ahayd qoomiyadaha kale ee Afrika balse ma jirin hal maamul ama hal boqortooyo ama hal dawlad oo ka dhaxeeyay dhulka Soomaalida oo dhan sidoo kale ma ahayn Soomaalidu dad isku furan oo la xidhiidha maamul ama mid ganacsi balse Soomaalida intii wada degta ee ood iyo abwadaaga oo kaliya ayaa isgaari jiray oo ganacsi wada samaysan jiray ama geela kala qaadi jiray waxaana markhaatigaas aad ka dhaxelaysaan suugaantii hore ee Soomaalida markan inta aynan u gelin sida ay ku samaysmeen xuduudaha Soomaalida ee aynu maanta naqaano aan dul istaagno waa maxay xuduud yaa hindisay sideese ayay ku dhismeen xuduudaha guud ahaan dalalka caalamka kadib colaado socday muddo 30 sanadood ah waxa magaalada Westphalia ee ku taalay dalka Jarmalka sanadkii 1648 lagu gaadhay heshiis lagu soo afjarayay colaadihii ka socday qaaradda Yurub waxaana heshiiskii magaaladaas lagu saxeexay uu sees u noqday heshiisyada caalamiga ah ee dunida ee xadidaya xuduudaha dalalka wixii xilligaas ka dambeeyay waxa dunida ka aasaasmay dalal badan oo leh xuduudo la yaqaano haddaba sidee ayay ku samaysmeen xuduudaha Soomaalida ee maanta jira
markii laga guuray kacaankii warshadaha ayay wadamada galbeedku ku fakareen inay ka faa'iideystaan oo isticmaalaan kheyraadka qaaradda Afrika. shirka caanka noqday ee ku 884 ka dhacay magaalada Berlin ee dalka Jarmalka oo isugu yimaadeen Mareykanka iyo 13 dal oo reer Yurub ah ayaa lagu qaybsaday maamulka qaaradda madow oo weli nidaamkii beelaha iyo boqortooyooyinku baaqi ku sii ahaayeen. imaatinkii galbeedka ee Afrika ayay ku samaysmeen xuduudaha maanta qaaraddu ku dhisan tahay. qaybsashadii gumaystaha ayaa go'aamisay xuduudo rasmi ah oo ay Afrika yeelato. Soomaalida oo kamid ahayd dhulkaas la qaybsaday waxay ka koobnayd 5 qaybood waana shanta loo yaqaano ilaa maanta. shantii Soomaaliyeed waxayna kala ahaayeen France Somaliland oo Faransiiska gacanta u gashay, Italian Somaliland oo Talyaanigu qabsaday, Somaliland British Protectorate oo Ingiriisku gacanta ku hayay, NFD oo iyadana Ingiriisku haystay. Soomaalida Itoobiya oo ka koobnayd 2 qaybood oo la isu geeyay oo kala ahaa Ogaadeen Region oo Talyaanigu haystay balse markii dambe Hawd and Reserve Area lagu daray loona gacan geliyay Itoobiya 1954 balse markii hore Hargeysa laga maamuli jiray. sidaasi ayay ku samaysmeen xuduudaha Soomaalidu. xuduudda Somaliland iyo Djibouti waxa kala saxeexday Faransiiska iyo Ingiriiska waana xuduudda ilaa maanta lagu dhaqmo. sidoo kale xuduudda Somaliland iyo Soomaaliya iyadana waxa kala saxeexday Ingiriiska iyo Talyaaniga. sidaas ayay labada xuduudood ku noqdeen xuduudo caalami ah oo dunidu aqoonsan tahay. guud ahaan xuduudihii gumaystaha ayaa ilaa maanta qaaradda Afrika iyo wadamada caalamkaba lagaga dhaqmaa. xuduudda Somaliland uu sameeyay isticmaalkii ay dunidu aqoonsan tahay waxa uu kala qaybiyay beelo uu qayb badal ku daray. haddaba beeluhu wax ma ka bedeli karaan xuduudaas? xuduudda Somaliland ee dunidu aqoonsan tahay waa xuduudo beelaha Somaliland ku abtirsada dhexmaray oo qaarba wadan ku daray. xuduudda galbeed ee Somaliland beel kamida beelaha dega jamhuuriyadda ayuu qaybna ku daray Itoobiya, qaybna raaciyay Somaliland. xuduudda waqooyi galbeed ee Somaliland beesha degta qayb kamida waxa uu raaciyay Djibouti, qaybna waxa uu ka dhigay Somaliland. halka isla dhinaca koonfurta Somaliland beelaha dega iyagana qayb kamida uu ku daray Itoobiya, qaybna uu Somaliland raaciyay. sidaas la mid ah ayaa xuduudaha dhanka bari ee Somaliland beelaha dega qaarkood qayb uu uga dhigay Somaliland, qaybna uu raaciyay Soomaaliya. taasi waxay muujinaysaa in Somaliland aanay ahayn beelo balse ay tahay dhul iyo xuduudo cayiman oo caalami ah oo cid kasta oo degta ka dhigaya Somalilander, cid kasta oo ka baxsanna ka dhigaya ajnabi. si lamida sida ay Somaliland iyo Soomaalida kale xuduudaha caalamiga ah u qaybiyeen ayaa qoomiyado badan oo Afrika ka tirsan ay xuduudaha wadamada u kala qaybiyeen. waxaana jira qabaa'il iyo qoomiyado badi dalalka Afrika sidaas oo kale xuduuduhu u kala raaciyeen 2 dal iyagoo isku qabiila sidoo kalena isku qoomiyada. markii uu gumaystuhu badi ka baxay qaaradda Afrika waxa ka curtay murano la xidhiidha qabaa'ilka ay xuduuduhu kala qaybiyeen iyo dalalkii. khilaaf badan kadib sanadkii 1963 ayay dhammaan dalalkii qaaradda Afrika oo Soomaaliduna ku jirto ku heshiiyeen in xuduudaha loo daayo sidii gumaystuhu iclaamiyay. waxaana heshiiskaas lagu aasaasay sanadka ururka midowga Afrika ee ilaa maanta ay dalalka qaaraddu ku midaysan yihiin. waxaan filayaa inaynu isla fahanay in xuduudaha Soomaalida iyo kuwa qaaradda Afrika oo isku xilli samaysmaba yihiin kuwa caalami ah oo aanu muran gelay. balse markan aan dib ugu noqono xilligii gumaystaha iyo gobonimo doonkii. ugu horeyn dhaqdhaqaaqii gobonimo doonku waxa uu ahaa guux jiray oo aan gudaha ka soo bixin. hase ahaatee soo ifbixiisii ugu weynaa waxa uu la kowsaday markii Ingiriisku uu bixiyay dhulkii Hawd and Reserve Area oo uu ku daray dhulweynihii Itoobiya. xilligaas magaalada Hargeysa waxay calanka u siday gobonimo doonka Soomaalida waxaana sanadkii 1954 magaalada Hargeysa ka dhacay mudaharaad ballaadhan oo looga soo horjeeday mustacmarkii Ingiriiska gaar ahaan go'aankiisii uu ku bixiyay dhulkii Hawd and Reserve Area. marka laga yimaado Soomaalidii Ingiriisku haystay ee xornimada doonaysay marna ma isweydiisay xagee buu ka yimi dhaqdhaqaaqa midnimo doonku ama rabitaankii 5 Soomaaliyeed oo midowda. curashadii fikradaas guud ahaanba ma ahayn mid ka soo maaxatay maskaxda Soomaalida, hase yeeshee waxa uu ahaa rabitaan ka yimi gumaystihii Ingiriiska dagaalkii labaad ee adduunka kadib oo uu doonayay inuu isagu guud ahaanba ku maamulo dhulka Soomaalida oo dhan. hase ahaatee waxa jiray waxgarad reer Somaliland ah oo iyaguna watay aragtiyo baal socday tan mustacmarka Ingiriiska oo ay ku rabeen inay isugu keenaan 5 Soomaaliyeed.
halka dhinaca kale ay jireen ururo gobonimo doon ku sawirnaa oo haddana iibgeynaya danaha gumaystaha iyagoo iska dhigayay inay shan Soomaaliyeed isla raadinayaan. Shirkii ugu horreeyay ee lagaga hadlo Soomaali weyn waxa uu ka dhacay Burco 1957. marka aan leeyahay Soomaali weyn uma jeedo magaca waqtigan ay xambaarteen dalka Soomaaliya loona isticmaalo sifaha khaldan, balse waxaan ka hadlayaa rabitaan shan Soomaaliyeed oo hal dal ku midowda. shirkaas waxa qabtay xisbigii SNL oo uu hogaaminayay Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal. 1958 iyo ahayd sanadkii xigay waxa isla shir lagaga hadlayo midnimada Soomaali weyn lagu qabtay Muqdisho iyada oo shirkaasna ay horseed ka ahaayeen hogaankii SNL ee Burco ku shiray oo dareenkii Burco ka soo bilaabmay u qaabeeyay inuu wada gaadho shantii Soomaaliyeed, balse dhaqdhaqaaqu waxa uu ku koobnaa Hargeysa iyo Muqdisho oo ay gaadhayeen. 2 sano kadib muddada Somaliland waxay xornimadeedii ka qaadatay gumaystihii Ingiriiska 26 Juun 1960. waxaa si rasmi ah dawladnimo ugu aqoonsaday Somaliland 33 dal, hase yeeshee jibbo aan jiha rasmi ah lahayn iyo dabayl Soomaalinimo oo dadka haysay ayaa sababtay in si bilaa shuruuda xornimadii xeelada lagu helay lagu geeyo xamar. markan xornimadii kadib ma laba gobol baa midoobay mise laba dawladood, magacee ayaase lagu midoobay? saaka baarlamaanka sidii barnaamijka loogu tiilay waxaa la isugu yimid in ninka ra'iiska oo kumeelgaarka ah markuu yimaado baarlamaanka reer ku jira iyagoo wada jira baarlamaanka ummadda in ay dhaartaaniin, markii ay dhaartaaniin in markaa kadib la doorto ninkii ra'iiska ahaa oo kumeelgaarka ahaa. markaa kadib baarlamaanka ummadda isagoo wada jira in lagu dhawaaqo wadajirka Soomaaliya iyo Somaliland kumeelgaarka ahaa oo jamhuuriyadda Soomaalida ee soo galaya baarlamaanka ayaad maqlaysaaniin. waa su'aal aad loo siyaasadeeyo aynu markhaati u qabsanno qoraalka ciwaanka looga dhigay heshiiskii Israaca Act of Union ee soo baxay January 31 1961 kaasoo si wada jir ah u saxeexeen madaxweynihii jamhuuriyaddii Soomaaliyeed ee xilligaas Aadan Cabdulle Cismaan iyo ra'iisul wasaarihii Cabdirashiid Cali Sharmaake, isla markaasina uu ansixiyay golihii baarlamaanku. qodobka koobaad ee heshiiskaasi waxa uu leeyahay waxaa midoobay Somaliland iyo Soomaaliya oo ku midoobay Somali Republic ama Jamhuuriyadda Soomaaliyeed. heshiiskaasi waxa uu cadaynayaa jiritaanka laba dal oo midoobay, sida shuruucdooda loo midaynayo, sida ciidamadooda loo midaynayo, sida maxkamadahooda loo midaynayo, sida dhalashada ama jinsiyadda muwaadiniintooda loo midaynayo. tusaale ahaan qodobka 5 ee heshiiskaas ayaa sheegaya dhammaan dadka xilliga heshiiskaasi la gaadhay haysta dhalashada Somaliland iyo Soomaaliya waxay noqon doonaan muwaadiniin jamhuuriyadda Soomaaliyeed. taasi waxay cadaynaysaa in shacabka u dhashay Somaliland inaanay marna noqon muwaadiniin dal la yiraahdo Soomaaliya. waa sida uu dhigayo heshiiska uu saxeexay madaxweyne Aadan Cabdulle Cismaan iyo ra'iisul wasaarihiisa. sidoo kale Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal oo kamid ahaa siyaasiyiintii hormuudka u ahaa midnimadii uu isna marar badan sheegay. We have never been citizens of a country called Somalia. Somalia, the name Somalia comes from the Italian syntax. We were Somaliland. They were Italian Somaliland. We were British Somaliland protected. We united in 1960 and we have formed what is registered in the United Nations, in the OAU, in the Arab League as the Somali Republic. muddo kadib maxaa dhacay? maxaa laga dhaxlay Soomaalidii koonfureed ee la midoobay? xillimaayay meesha ka baxday jamhuuriyaddii Soomaaliyeed ee lagu midoobay, isla markaasina ay isu bedeshay jamhuuriyadda Soomaaliya. qaybta labaad ee barnaamijkan ayaan ku soo qaadan doonaa.